hooya noolad hooya u sheegay iyo adeer hooya qabo markaa barnaamijkan u sheegay alaabtii banaanka la isoo dhigay waxaa lalahay cabdinaasir haddaa xanuunka isqabtid walaalowna dhaaf. waa 25 jir maanta la nool xanuunka HIV. wuxuu ku dhashay Qoryooley wuxuuna ku soo koray Baraarey bashbash. haasaatee Cudurkii wuxuu u dumay kadib markii laga helay xanuunkan. haddaba sidee buu ku qaaday xanuunka HIV Cabdinaasir Maxamed Isaaq? nin shaqaysanaya iska ahay oo iska xamaalinayo tabar leh saada u tawardhigay waas u tawardhigin bas anoo iska shaqaysanayo oo iska xamaalinaya gabar guursaday gabar oo macaariifo saas aan u lahayn gabadhii ilaahay kuma darnaadee walaalkay gurigaan dejiyey bas gabadhii muddo 1 sano iyo bar markaa qabay xoogaa waxaa dareemay baaba anigoo sii baaba'ayo oo difaacayga hoos u dhacayo oo aan dareemayo dhabar xanuun iyo lafa xanuun iyo kor xanuun iyo tabartii sii yaraanayso bas gabadhii aqoon saas uma lahayn macrifasaas nama dhex marin si fudeed aan ku guursaday maalin maalmaha ka mid way iska baxday anoo sii baaba'ayo marka ayada dareentay kulley xanuunka ayadaa qabtay ayadaa ii qarisay annagoo iska aaminay guriga waxaa u imaaday guriga xiran oo qufulin anigii waa naxay waa wacay ayadaa raadiyey taleefankeeda wacay waa taleefankeeda disatay magaaladii ka baxday anigii waa soo baxay magaalada Qoryooley markaas deganaa waa soo baxay xamar soo galay waxaan sameeyey baaritaan markaan sameeyey xanuunka lagu sheegay kadib markii xaaskiisa ay qaadsiisay xanuunka iyadiina ay ka dhuumatay albaabka kaliya ee nolosha ka filan karaya ayaa ahaa qoyskiisa hooyadii iyo walaalihii iyaga markii xanuunku ay ku maqleen maxay sameeyeen reerkan u laabtay reerkan u sheegay waxa waaye Allah naxariisto abo inta Allah naxariisto hooya noolad hooya u sheegay iyo adeer hooya qabo markaa barnaamijkan u sheegay alaabtii banaanka la isoo dhigay waxaa lalahay cabdinaasir haddaa xanuunka isqabtid walaalowna dhaaf amaan nasiin xanuunka sawaatay anagana han jaifeen han u daarin saas ma aha waxaa tiin waalidkii may anigoo xanuunka u sheegay aasaas la isoo fuquuqay bas taasna waxay ii keentay niyajab weyn. Cabdinaasir ayaa maalin iyo habeen baa niyadda ku haya inuu maalin uun caafimaad helo hasaatee meel walba u maray kaliya wuxuu helaa daawooyinka laakiin dhanka kale waxaa ka maqan nolosha kale caadiga wuxuuna maalin walba la kulmaa faquuq kaga imaanaya xagga bulshada faquuqaas ayaana waxa ugu weyn kaga imaanaya dhanka waalidkii waxaa deeray hooyadii iyo walaalihii maanta halkan ayuu si kalinimo ugu nool yahay. maxamed cabdullaahi jameeka muqdisho keebay.